asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhowaada Somali Media of Minnesota. Somali Media of Minnesota waxay ku dadaalaysaa inay idin soo gudbiso akhbaaradkii ugu dambeeyay ee gobolka Minnesota, gaar ahaan kuwa quseeya dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka siday dooniba ha ahaatee oo saameynta ku leh noloshooda. Haddaba warbixintan maanta idin hayno waxa weeyaan, maxaad ka ogtahay sharciyada cusub ee dhaqangalaya 2024 iyo saameynta ay ku yeelanayaan reer Minnesota oo ay ku jiraan Soomaalida? Sharci cusub oo dhowr ah oo ay ansixiyeen golaha sharci dejinta Minnesota ee dimuqraadiyiintu aqlabiyad buuxda ku haysteen 2023 ayaa dhaqangalaya Janaayo 1, 2024. nabadgelyada iyo dadweynaha, xubnaha qoyska iyo booliska ayaa hadda codsan kara amarka ilaalinta degdega ah ama extreme protection order waxa loo yaqaano haddii qof hub haysta la rumaysan yahay inuu khatar ku yahay naftiisa ama dadka kale. Isbedelada kale ee badbaadada qoryaha waxaa ka mid ah baaritaanka buuxa ee lagu sameynaya qofka iibsanaya qoriga, kaas oo dhaqangalay horaantii 2023. sidoo kale shaqaalaha xabsiyada lagu haya dhalinta ma samayn karaan baaritaan dharka laga bixinayo iyada oo aysan jirin kontrabaan la garanayo in ay haystaan dhalinyartaasi xiran. sidoo kalena meel gooni ah kuma xiri karaan si loo ciqaabo. fasaxa xanuunka, mid ka mid ah waxyaabaha aadka uga dooday xeer ilaalinta oo dhaqangalaya Janaayo 1 waa fasaxa xanuunka iyo waqti isbaxnaanin. loo shaqeeyaashu waa inay u ogolaadaan shaqaalaha ilaa 48 saacadood oo mushaarka la siinayo qofka sanadkii si ay u daryeelaan caafimaadkooda maskaxeed ama jireed, ama in ay daryeelaan qof ka mid ah qoyskooda. waxay qusaysaa dhammaan loo shaqeeyaasha leh hal shaqaale ama ka badan, waxaana ka mid ah dhammaan shaqaalaha oo ay ku jiraan kuwa shaqeeya halgelin iyo kuwa meel gaadhka ah, kuwaas oo shaqeeya ugu yaraan 80 saacadood sanadkii. shirkadaha bixiya waqtiga xanuunka intaa ka badan waa ay sii wadi karaan inay siiyaan waqtigaasi shaqaalahooda. waxbarashada, dugsiyada dadweynaha waxaa laga doonayaa in ay musqulaha dhigaan agabka dumarka u xirtaan caadada. xildhibaanka sharcigan keenay ayaa sheegay in ardayda qaar aysan awoodin in ay iibsadaan, taas oo saameyn ku yeelata waxbarashadooda. xeer waxbarasho oo ballaaran ayaa u qoondeeyey $2 ardaygiiba oo sanadkii gaaraya qiyaastii $2 milyan. badbaadada cunnada, PFAS chemicals oo loo yaqaano forever chemicals ayaa laga mamnuucay baakadaynta cunnada iyo cabitaanka sida bacaha lagu duubo, beegarka iyo baakadaha la geliyo daangada. qaar ka mid ah kumanaan kimikooyinka PFAS ayaa si caadi ah looga isticmaalaa waddanka oo dhan, welina dowladda federaalka ogolaasho ayay ka haystaan sida baakadaha biizaha iyo bacaha lagu duubo. dufanka Minnesota waxa ay ka mid tahay 11 gobol oo mamnuucay isticmaalka wax soo saarka PFAS. guryeynta, goobaha cibaadada sida masaajida iyo kiniisadaha waxaa loo ogolaaday in ay qolal yaryar ku daraan dhismayaashooda si ay u dejiyaan howlaawayaasha. waxaa sidoo kale dhaqangalaya sharciyo cusub oo ilaalinaya kiraystayaasha guryaha oo ay ku jirto mulkiiluhu ogeysiis inuu siiyo dadka degan guriga lacagta lagu leeyahay ka hor inta aysan guriga ka saarin, xuquuqdoodana ay u sheegaan. qaaraanka siyaasadda, laga bilaabo 2024 reer Minnesota waxay heli doonaan lacag celin canshuur sare ah oo ku saabsan tabarucaadka siyaasadeed ee xisbiyada siyaasadda ee Minnesota iyo murashaxiinta xafiisyada gobolka. canshuur celinta ayaa laga dhigay $75 shakhsigiiba halkii ay ahaan jirtay $50. lamaanahana waxaa laga dhigay $150 halkii hore u ahaan jirtay $100. sharciga waxaa ku jira qodob mamnuucaya tabarucaadka shirkadaha dibadda laga leeyahay, hase yeeshee qodobkaasi waxaa hor istaagay xaakim. shaqaalaha, loo shaqeeyaasha ma weydiin karaan codsadayaasha shaqada inay sheegaan mushaarkii ay hore u qaadan jireen, inkastoo codsaduhu uu si ikhtiyaar u bixin karo macluumaadkaasi. sharcigan ayaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah kooxaha ganacsiga, laakiin taageerayaashu waxay yiraahdeen sharciga oo 18 gobol oo kale horay u dhaqangeliyeen ayaa gacan ka geysan doona in meesha laga saaro farqiga mushaar bixinta u dhaxeeya ragga iyo dumarka iyo weliba isirka oo cadaanka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyadoo loo shaqeeyaashu ay tixgelin doonaan xirfadda codsadaha shaqada iyo shahaadooyinka ay haystaan. intaa waxaa dheer, loo shaqeeyaasha leh in ka badan 50 shaqaale oo waqti buuxa ah waa inay soo bandhigaan boorad ay ku qoran yihiin macluumaadka faa'iidooyinka askartii hore ay helayaan. shaqaalaha ka shaqeeya hilibka iyadana waa in la siiyaa tababaro lagu yaraynayo muruqa. labada warshadood ee saliidda ee Minnesota waa inay raacaan shuruudaha tababarka goobta shaqada ee cusub. warbixintani waxay idinka timid Somali Media of Minnesota iyo Sahan Jono.